Bueno, bueno. waxaa markuu isbedelay jawiga magaalada Lowyacado kadib markii uu khilaaf xooggan ka dhex qarxay iskaashatada gaadiidleyda ee Tawakal iyo maamulka gobolka Salal iyo kan degmada Lowyacado. Shirkadda gaadiidleyda ee Tawakal ayaa ah ku dhawaad 160 gaari oo iyagu iskaga kala goosho dalalka Soomaaliya iyo Djibouti, kuwaasi oo qaada alaabaha kala duwan ee xamuulka ah ee u kala gudba dalalka Djibouti iyo Somaliland. isku soo wada duub oo isku dhacan u dhaxeeya shirkadda gaadiidleyda Tawakal iyo maamulka gobolka ayaa waxa uu ka dhashay 4 gaari oo aan ka mid ahayn shirkadda gaadiidleyda Tawakal oo aan hayntooda la garanaynin, balse ay maamulka gobolka Salal ka soo qaateen waraaqo ogolaansho ah oo ay kaga rari doonaan alaabo xamuul ah kastanka magaalada Lowyacado ee gobolka Salal. sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo darawalada shirkadda gaadiidleyda ee Tawakal, waana kuwan iyagoo ka cabanaya mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka Salal oo ugu horeeyo barasaabka gobolkaasi Salal, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan maanta aad uga dhiilaysanahay oo aad uga murugaysanahay annagoo iskaashatadii gaadiidka Tawakal, gaadiidkayagii iyo maamulkayagii oo midba meel control iyo isiin custom ilaa Lowyacado ilaa Saylac ilaa Geerisa lagu xidhay. waxaana lagu xidhayna ay tahay baabuur aan iskaashatada ku jirin oo maamulka customka lagu khasbayo lagana keenay oo isku hayb yihiin madaxweyne iyo maamulka iyo wasiirka arrimaha gudaha. waxaan leenahay weynagii ku ololaynay inuu sharcigu sareeyo, sharcigii ha lagu dhaqmo, sharcigu ha sareeyo. waxaa naloo siiyey waraaqahan, waxaan leenahay liisan, waxaan sanad kasta bixinaa cashuur. gaadiidka iyagaasu meel kale kama shaqeeyaan aan ahayn Lowyacado ilaa Hargeysa. halkiibaa maanta aanu sharciga u haysanay ee aanu nidaamka u samaysanay ee gaadiidkaygii oo dhami ay ka wada shaqeynayeen. malnuun qabiil iyo cid Soomaaliland oo dhan baan ka wada koobannay. waxaan wasiirka arrimaha gudaha, wasiir dawlaha arrimaha gudaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in arrinkayga si dhaqso loo soo galo. waxaan ka hadlaynaa oo ka cabanaynaa maanta iskaashatada Tawakal haddaan nahay, waxaan ka cabanaynaa maxay ahayd maamulkayagii, baabuurtayadii, gaadiidkayagii intii oo mid walba meel lagu xidhay tacdiil loo geysanayo. tacdiilada dowladda Soomaaliya lagu hayso waxaa lagu hayaa balasaabka gobolka iyo maamulaha kashtaga Saylac. waa intaa waxaan ka cabanayno.